hadlayna haddaan nahay odayaasha bariga berbera dhibaato ka soo noqnoqotay bariga berbera xeebaheeda oo dhimasho halisa oo dad iyo dunyaba iyo mid hadeer loo jifo oo halis lagu jiro intaba keentay wasaaradda caafimaadka ee gobolka saaxil hawsha markii hore intii awoodeeda way ka hawlgashay waana ku mahadsantahay waana ugu mahad celinaynaa hawsha way ka tan badatay waxaanu baaq u diraynaa wasiirka caafimaadka dhiijiga madaxweynaha wasiirka xanaanada xoolaha dhiijiga xanaanada xoolaha cid kasta ay qusayso arintaasi waxaanu leenahay dadkaasi iyo dunyadaasi meesha waa tacabsan yihiin dadka ilaa 8 qof baa dhintay dunyada tirakoob ma laha meesha waxaanu canaan u jeedinaynaa oo aanu aad iyo aad uga xunnahay waanu leenahay hawshiisi uu gabay barsaabka gobolka saaxil oo fadhiida waa barsaab marka uu gobolka mas'uul ka yahay xadka gobolka meel kastuu bari iyo galbeed koonfur iyo waqooyi meel kasta inuu tago oo ogaado waxa lagu qabo waa xaq buu leeyahay toddobaad kasta inuu warbixintiisa qaato ama uu tago hawsha barsaabku uu iska dhiga maray waxilana iskama saarin hadeer markii loo tagay wixii wax awoodo ma hayo asaga hawshan aan ku hadlina lahaa inuu ka hadlo barsaabo ogeysiyo wasaaradda caafimaadka iyo dawladda dhexe asaga madaxweynaha gobolka barsaabka aad baanu canaanaynaa aad iyo aad baanu dhaliilaynaa wasaaradda caafimaadka iyo taxanaanada xoolaha wasiiradeeda iyo dhiijiyadeedaba dalkan idinka ka mas'uula gobolka saaxil awoodiisii wixii qaban karayay wasaaradda caafimaadka way qabatay wasaaradda xanaanada xoolaha iyada wax kama hayno iyada hawlgala oo rasmiya kama hayno aad iyo aad baan hadda iyada lafteeda u dhaliilaynaa markan la yaahdo saaxil waxaanu ka helay qol caafimaadka ilaahay nimanka ay u gargaaro way noo gargaareen tirada dadka iyo in badan bay dadka ay la tabceen laakiin de wixii ilaahay wixii ay markaa iyagu qaban kareen way ka qabteen waana ku badbaadiyay wixii badbaadayay cid kale oo wax loo qabato ma jirto dadkina hal duu danayo jiifaa hadda laasi uu diray waa dadkii duudu waa jiifaan way liitaan wala anigu gobolkan de ma garanayno cid xukunta iyo cid xukunta ma garanayno meel la xukumato waayo de waan ku arki lahayn cid baa nooga iman lahayd de waxaan doonaynaa waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliland madaxda ka ah anagu wasaaradda guud in aanu gaarsiinayna arinta in wasiirka xoolaha xanaanada xoolaha iyo caafimaadka labaduba inay gameeda hawsha ka tiileema dadka dad loo baahayo diyo loo baahayo mid maaha hargeysa ma soo dhaafan iyo agagaarkeedana ma leeyahay arintaas caafimaad darrada ay ka soo cusboonaatay bariga ma aha wax imika bilowday 3 bilood ka hor ayaa caafimaad darradan iyo xanuunadan ay ka dilaaceen oo dad iyo dunyaba leh bariga saaxil oo muddo 3 bilood ka hor wasaaradda caafimaadka ee gobolka saaxil way ka hawl gashay 22 casho ayay hadee bixum ay shaqeynayeen shaqaalaheedu dad wixii dhintay mooyana wixii kale wixii taalkooda ahaa way qabteen waxa say hadee bixum ay arinta halka taala waxay noqotay arin ka baaxad weyn dhulku waa dhul qorfa waa dhul buura dhul ay xitaa dadka xanuunsanaya buuraha kala bixin dawooyinka haddana isla alaanka xanuunka wasiilaba kacleeyay dad iyo dunyana waa loo jifaa xanuunkuna wuxuu ka imanayaa number 1 wuxuu ka imanayaa xoolaha ay dadku haystaan ay dhaqanayaan ayuu ka imanayaa xoolaha xanuunku ku dhacay dabadeetana wuxuu soo gudbiyay dadkii xoolaha haystay ayuu soo gudbiyay wasaaradii xanaanada xoolaha ee xaq u lahayd inay hadee bixumay iyaduna sida wasaaradda caafimaadka iyaduna ka garab dagaalanto oo ay u gurmato xoolaha way ka fadhiisatay way shaqadeedii way ka soo bixi weyday dadkaana xanuunka waxa u soo gudbinaya oo xanuunku uu ka imanaya xoolaha waxa ku dhintay geel ilaa kuna ariga baxay 6 kun buu gaaraya iminkana intii ay haysteen baaqiga ahayd way liidataa dadkiina wuu cunay xoolihii caanihiina wuu cabay cadkiina wuu cunay oo ku bukaa waxaanu halkan maanta u niminaanu baaq u diro wasaaradda xanaanada xoolaha wasiirka caafimaadka iyo cid kasta oo danaynaysa oo mas'uuliyad ay ka saaran tahay dadkan iyo dalkan oo madaxweynuhu lambar 1 ka yahay
waxaanu leenahay dadka degan deegaanka 400 mitir isku wareega xaalad caafimaad darro oo degdeg ah ayaa la soo diristay waxaanu ka codsanaynaa wasaaradda xanaanada xoolaha iyo wasaaradda caafimaadka labaduba inay ka howlgalaan arrinka mas'uuliyadda ugu weyn gobolkan waxa u haya barasaabka gobolka saaxil barasaabka gobolka saaxil wuxuu ku mashquulay gurigiisa iyo gaarigiisa cad ku mashquulay laakiin war uma hayo shaqooyinkii uu xaq u lahaa inuu hadee maxay gobolka saaxil loogu soo igmaday war uma hayo waxa weeye shaqadan inuu baaq diro oo dadka u war hayo oo wasaaradda deegaanka uu ka war hayo deegaankan xanuunkan mid ku soo booday ma hay 3 bilood ayaa dadkani ay tabcaanahay 3 bilood waxaanu rajaynaynay inuu barasaabku talaabo qaado ma hayno barasaabkii wixii waajib u lahaa ee waajibaad ka saaraa loo soo igmaday ma hayno kama hayno waxaanu u direynaa baaq xukuumadda sare DG-ga wasiirka labada wasaaradood ee caafimaadka iyo xanaanada xoolaha madaxweynaha waxaanu ka codsanaynaa dhibka halka ka taagan ee dad iyo duunyaba leh in wixii gargaar ee lala gaari karo si degdeg loo soo gaaro dhimashada dadka dhintay waa 8 qof inta la hubo inta u jiiftaana waxay ka badan tahay 50% baa jiif hadeer ama 60% baa jiif dadkaasi dhiig bay huqaacayaan dabadeetana naftu waa ka baxaysaa xanuunkaasina isla alaanka lama sheegin wuxuu yahay waxaanu ka cabanaynaa saaka odayaashayadani ee aanu ka warramaynaa xanuun ku dhacay bariga berbera xanuunkaasi wuxuu ku dhacay xoolaha wuu laayay tarab buu ka dhigay geel iyo ariba wuu laayay ka bacdi wuxuu ku dhacay dadkii waxa ku dhintay 8 qof oo rag iyo dumarba leh in badan oo aan la koobi karina imika way u jiiftaa way liidataa waxaanu codsanaynaa ciddii ay qusayso shaqadani inay ka howlgasho oo ay wax ka qabato lana badbaadiyo xoolaha iyo dadka wixii hadhay la badbaadiyo dadkiinu waxay maqlaysaa indhihiinuna waxbay arkaan wayna arkaan caafimaad darrada way ogyihiin way ka warayaan in xooluhu dhintay waa ogyihiin in dadku dhintay waa ogyahay markaa waxaan leenahay waa wixii la danaynayo gurmad baan u baahannahay gurmad degdega baan corona dadka ayadaa leediin coronaha ummadda haysee caalamkaba haya ka annaga nahayabaa ka xun coronaha kaa qofku beerkaa digada noqonaya xagga hor iyo xagga dambe dhiigu ka sii daynaya halkaasay kaga baxaltaa xooluhuna waa sidaasi leh coronada ka xunti hadda ma fahantahay waa markaa wixii la danaynayo caafimaad darradaasaa na hayso oo waxaan u baahannahay gurmad degdega ayaan u baahannahay baaqaa waxaan u diraynaa jamhuuriyadda somalilan iyo wixii ay qusayso ayaannu u diraynaa waxaannu leenahay bariga berbera ee xeebta karin ayaa hagiisa gambaxo laas muuse waxa ka jira xanuunkaasoo halisa waxaannu leenahay somalilanay dee dawlad kalena ma leh cid kalena ma leh gurmad baannu u baahannahay dad iyo duunyaba u haya xanuunkaasi mala doorashadu markay jirto dee waxaa la yahaa xisbiyada kala celiya xagga xisbiyada loo ordaayo xisbi waliba dad buu eryadaaye halkan waa xisbi waliba kulmiyuu badan yahay meeshan u badanta waxay ka doonayeen garan bamayn dad liitaana codayn maayo codka helmaysa kulmiyow dadkaagi waa liita waxa musharaxiinta berbero oo dhan baa ka sharaxan meesha waxaanu leenahay arrintaa emergency weeye gurmad degdegaa loo baahan yahay hadday wasaaradda caafimaadka tahay dadka tahay iyo hadday xoolaha tahayba